أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعاشرك تفسيرك القرآن الكريم وقيبت أنا وترجل أرضنا وأنا عاشرك كوبات. عاشرك أنه حكو صاب سمان دونا إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة هي مقرد كوبات سورة البقرة. سورة الفاتحة هو سورة مكية على الأرجح سيد اللو بدنيا هي، وحي كمتها قرآن النبي عليه الصلاة والسلام كسو دي قبل الهجرة. معي كلا تيلاده معي هذا وحاكمذا الرقية وحاكمذا سورة الفاتحة وحي كمتها قرآن كفضائش القومذا أوسو أروري، والنبي عليه الصلاة والسلام حكسهما تئين يري الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة هي 7 المثاني وتضبط لسوء العليو والقرآن العظيم، القرآن كوين الذي أوتيته إليسي. حديث كان البخاري بأسوا صاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة سورة وحنكون بالله بيا بسم الله مجع على عسكشيسة اللي هي الرحمن حريست تقول لها، اللي هي الرحيم حريست جارهان يلا. الحمد مهد إذا الكذل لله اللي أصبناتي اللي هي رب العالمين أنك رب قوضها. العالمين وحال هذا ما سوى الله وحي الله كصهري أي عالمين لدها. سورة الشعراء بنوتي دونا وفرعون ويدينية نبي الله موسى وما رب العالمين. رب العالمين محويه حال ولا ذا بكاس وحير ورب السماوات والأرض وما بينهما. marka waxaa cadaatay wixii alla ka soo haray oo uunkaas oo dhan inay caalamiinta loo jeedo. الرحمن alihi naxariista guud lahaa، الرحيم alihi naxariis gaar ahaaneed lahaa. ilaahay naxariis guudna waa leeyahay oo uunka oo dhan buu u naxariistaa، naxariis gaar ahaaneedna wuu leeyahay oo mu'miniintu si gooni ugu naxariistaa. وكان بالمؤمنين رحيما مالك alihi lahaa يوم الدين maalinta abaalmarinta، maalinkaas abaalmarinta alihi lahaa. maalin kastaba ilaahay subxaanahu watacaala asaga iska leh، laakiin waxa loogu khaas yeelay halkan waxaa weeye ee halkaas sidaa loo xusayo yowmudiinka waa maalin cid kaleta ay boqortooyo aysan sheeganaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dhahayo liman ilmulku lyowm, war boqortooyo maanta yay u sugnaatay. markaasay uunkao dhan dhahayaan lilahi bay u sugnaatay. iyaaka adiga keliyaan allow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keliyaan allow nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa. waxaa la yidhi xadiidulqudsiga wuxuu leeyahay aayaddaasi markuu akhriyo addoonka ayuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahayaa haadaa baynii wa bayna cabdii, taas ani iyo addoonkayga ayay dhexdaanada ahaatay. walicabdii maa sa'ala, addoonkaygana wax allaala wuxuu i weydiiyo ayaa u sugnaatay. ilaahay subxaanahu watacaala baa keligii cubuudiye loo qirahayaa. iyaaka nacbud, adiga keliyaan allow ku caabudaynaa, keyrka may. waiyaaka adiga keliyaan allow nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa, cid kaleeto oon kaalmo weydiisanayna ma leh. cibaadadaada inaad noogu kaalmayso adigaan allow ku weydiisanaynaa. ihdinaa allow nagu hanuuni assiraata jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa. masalada marka addoonkii uu weydiisanayo ilaahay subxaana watacaala waxaa weeye midda ugu muhiimsan oo hanuunin ah. waxaad leedahay allowna hanuuni assiraata jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa. hidaayada waxaa la yidhi waxay u kala baxdaa labay u kala baxdaayo hidaayatu dalaalatin wa bayaan, inay ruuxii loo cadeeyo xaqa oo meesha uu maaragtay xaqa uu jiro farta loogu fiiqo, iyo hidaayatu tawfiiq in la waafajiyo oo la jeclaysiiyo xaqa loo cadeeyey inay la jeclaysiiyo. middaa hore ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala iyo rusushii iyo culimmadii iyo ducaadii ayaa xaqa cadaynhaya oo ilaahay subxaanahu watacaala baa xaqa cadeeyey oo kutub soo dejiyey. midda kaleetana ilaahay subxaanahu watacaala asagay gooni u tahay, isagaa ciduu doono xaqa waafajiya, isagaa ciduu doono ee u arko inuu munaasib u yahay ee uu mudan yahay oo xaqaadiis u yahay xaqa jeclaysiiya. waana midda nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yiri innaka laa tahdi man axbabta, adiga nabiga sharafta badanow ma hanuunisid cidaad la jeclaata hanuunka walaakina allaha yahdi man yashaa, ilaahay baa ciduu doono hanuuniya. qisadii abi aalib iyo markuu geeriyoonayay bayna kusoo aroortay oo siirada waa kaad ku aragtay. ihdina allow nagu hanuuni assiraata jidka almustaqiima toosan, siraata aladiina kuwii jidkooda allow nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysay calayhim korkooda, kuwa aad u nicmayso korkooda ilaahayow wadadooda nagu hanuuni. kuwaa loo nicmeeyeyna waxaa weeye ambiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii oo aayad baa sheegaysa suuratu nisaa ku jirta. gayri lmaqduubi kuwa loo cadhooda keyrkood xaal ay yihiin wala daaliina iyo kuwa lume keyrkood xaal ay yihiin.
marka kuwa loo cadhooday ee aad leedahay ilaahu wadadooda kuwaasi naga bayri, wadadooda allow naga leexi aad leedahay, waa yuhuud oo kuwaasuu ilaahay subxaanahu watacaala u cadhooday. waqadiba allahu calayhim walacnahum. waladaaliina waa kuwa lumay oo nasaaro weeye, oo waxaa la yidhi nasaarana waxaa dhumiyey waxaa weeye waxay camal faleen cilmi la-aan. qolyaha yahuuddaana iyagoo cilmi leh ayay markaasi cilmiga ku camal falin, sidaasuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu cadhooday. yahuudi nasaara marka loo jeedaa. suuratu lbaqara ayadana waa suura madaniya, waxay kusoo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo hijrooday kadib. suuratu lbaqara ayadana fadaa'il gooni ah ayaa ku soo aroortay, oo markaa xadiid abi hurayra cinda muslim xadiid uu wariyey oo abu hurayra uu ka warinhayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nabigu wuxuu yidhi ina albeyta aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara, guriga suuratu lbaqara lagu dhex akhriyaaye laa yadkhuluhu shaytaan, shaytaan maba soo galaba. abda hadihi suura suuradda waxaan ku bilaaba bismi illahi magaca alla cuskashadiisa allihii arraxmaan naxariista guud lahaa, allihii arraxiim naxariista gaar ahaaneed lahaa. alif laam miim allahu aclam bimuraadihi. suuraddan waxay kamid tahay suwarka ku bilaabanaya xuruufta muqataca. waxaa la iska dhahaa marka ilaahay baa yaqaana sida loola jeedo, oo qaabkii ama manhajkii aan soo baranay inay tafsiirka lagu raaco markii la fasirayo la raaco, intuba waxaa weeye yani maaragtay ma suurtagelayso, oo aayad kaloo fasiraysana ma leh, xadiid nabiga ka sugnaaday oo fasirayana ma leh. carabi ahaan iyo luqadda carabigana alif laam miim wax la dhaho oo la yaqaanay ma jirto. marka cilmi yarida bini aadanka unbay tusinaysaa. ilahay wuxuu leeyahy wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila allahu aclam bimuraadihum baa la iska dhahaa. tanbiih iyo tacjiiz baa ku jirtaa la yidhi, oo markaa maaragtay yani waa baraarujin lasoo baraarujinayo uunka inay markaa alif laam miim markay garan waayaan ay dhegta soo taagaan. tacjiizna waa ku jiraayo inay yani wax badan aynan ogeyn ayaa ayadana sidoo kaleeto loo maaragtay loo cadaynhayaa. alif laam miim allahu aclam bimuraadih dalika kan alkitaabu kitaabka ah laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin, hudan hanuun fiihi dhexdiisa hudan hanuun baa ahaaday, hanuun baa ku sugan lilmuttaqiina muttaqiintu ugu sugnaaday. aladiina kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya bilghaybi ghaybka rumaynaya, waxa maqan rumaynaya, wayuqiimuuna toosinaya asalaata salaada toosinaya, wa mima rasaqnaahum wixii aan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna bixinaya. waladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila kii la soo dejiyey ilayka adii lagu soo dejiyey qur-aanka, iyo wamaa kiina rumaynaya unzila la dejiyey min qablika hortaa la soo dejiyey rusushii hore lagu soo dejiyey. wa bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna kuwa rumaynaya yaqiininaya ah. ulaaika kuwaas tilmaamaha noocaas leh calaa hudan hanuun dushii bay ku sugan yihiin, hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday. wa ulaaika kuwa noocaas tilmaamahaasi leh hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah. suuraddan waxay ku bilaabatay inay kitaabka qur-aanka ay ka hadasho. ilaahi subxaana watacaala waa kuu leeyahay laa rayba fiihi, wax shaki ah kitaabka qur-aanka kuma jiro. oo markaa kii ka shakisanna wax cad iyo qorox soo baxday mid nin yiri waan ka shakisanahay oo kaleeto mooyaane, shakigiisu shaki muctabar ah oo la qabsasho leh ma aha. kitaabka qur-aanka ah marka uunka loo soo dejiyey saddex bay u kala baxayaan, kuwo rumeeyey iyo kuwo iska diiday oo ku gaaloobay, iyo kuwo qolyo u dhexeeya oo munaafiqiin la dhaho. qaybta koowaad ayay markaasi aayadaha ka hadleen, oo dadka mu'miniinta la yiraahdo abaalgudkoodana ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi ulaaika calaa hudan min rabbihim wa ulaaika hum almuflixuuna, kuwa liibaan adduunya aakhira ayaga ah. ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waxaasimin calayhim dushooda a andartahum u digtaya nabiga sharafta badanow ama mase lam tundirhum umaada digina laa yu'minuuna rumayn mahayaan oo xaqa qaadan mahayaan. waxaa isku mid a inaad u digto iyo inaadan u digin, maxaa yeele khatama allaahu alla ayaa xiray oo owday calaa quluubihim qalbiyadooda dushooda ayaa la owday. khatmiga waxaa la dhahaa yani shabadda u dambaysa ee basqada marka la xiro lagu dhufto, oo markaa aanan la furaynin ilaa iyo meesha ku socoto ay tagta mooyaane. marka waa xidhan yahay oo waa owdan yahay qalbigooda. wa calaa samcihim maqalkooda dushiisana alle waa owday. wa calaa absaarihim aragyaalkooda dushoodana ghishaawatun dabool ba ahaaday. walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadiimun oo weyn. wa min annaasi uunka waxaa kamid uu yidhi alle man cid baa kamida yaquulu dhahaya aamanaa waan rumaynay bilaahi alle ayaan rumaynay
وباليوم الآخر ما أنت آخرنا وان رميني وما هم من أين نهان بمؤمنين كور رميمين هان لبدا آيادات أين الذين كفروا يختم الله وحلا يسوع الله قال هذا حق إسكديدة أيقو وركود وعدي هاي ماشي يكون بين وحليل ولهم عذاب عظيم عذاب وين بأسقنا هل كنا وحلا يقال هيا قليه منافقين تها وإلهي سبحانه وتعالى وحليه دتك وحاكمه كوالله هيا وان رميني علي رسول كيسان رميني لكن أنا نهين مؤمنين وأفك باركيس أمويه وح قلبي جرة معها ويخادعون وحيدق هيان الله ألا يو الذين كوا آمنوا علي نبرمي وما يخدعون من الدق هيان إلا أنفسهم نفيالكو دمويان وحك لما الدق هيان وما يشعرون من أي درين سنة يعني هذا أي أفك كشيغان هيان إلهي رسول كيسي اسكودي هيان إني كدقان لكن وحبا ما يوغي وحا أي دق هيان عدة أي قدك وطلاب سنة نفتو ضواي في قلوبهم قلبي ضحضو حكسوا مرض عذر بكسوا فزادهم الله ألنا وحو زيادي مرضا عذر بأزيادي ولهم وحيليهن عذاب بليهن أليم أو حنوجية بما كانوا وحي أهايين سببتي يكذبون كوا بين شيئا وإذا قرتي قيل الله وإذا قرتي قيل الله يراه لهم إيجا مركي الله لا تفسدوا فساديننا في الأرض لولك فساديننا وقال نمذا إيا النفاق إيا وحن هكو فساديننا مركي الله قالوا حداها إنما إن كلمه نحن نحن أنه أنبا مصلحون وناجيال حجاجيال وأن أنك إتك لو حجاجين يسميها بجرتي دهيان الله وحيري ألا هوياي ألا مركي الله فسره وحالا دها تنبهوا واعلموا ألا هوياي تنبهوا واعلموا برارugoo waxaad ogaataan inahum iyaga keligood hum iyaga ayaa almufsiduun inahum iyaga hum keligood ayaa almufsiduuna kuwa wax fasahaadiye ah walaakin hase yeeshee laa yashcuruuna ma ay oga waidaa goortii qiila loo yidhaahdo lahum iyaga markii loo dhaho aaminuu wa rumeeya kamaa aamana annaasu siday dadka u rumeeyaan oo kaleeto u rumeeya xaqa markii loo yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan anu'minu ma waan u rumaynaynaa kamaa sida aamana ay u rumeeyaan oo kaleeto assufahaau kuwa wax magaradka ah kuwa caqli fudaydka qaba ee caqligooda uusan fadhinin sida ay u rumeeyaan oo kaleeto miyaad doonaysaan inaan annaka u rumayno alla wuxuu yidhi alaa hooyahay tanabahu waclamu baraarugo waxaad ogaataan annahum iyaga hum keligood ayaa assufahaau kuwa wax magaradka ah ee maaragtay caqliga fudud ayaga keligood unba ah walaakin hase yeeshee laa yaclamuuna ma i oga waan dad aanan waxba garanaynin inayna waxba garanaynina aana is ogeyn waa marka jahliga la dhaho jahli murakab ayay ku sugan yihiin weye waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumayna bay dhahayaan dadka mu'miniinta markay la kulmaan iimaan bay sheegan hayaan oo markaa inay ku baxsadaan bay doonayaan oo ay ku dhex joogaan waidaa goortii khalow ay cidloodaan ilaa shayaatiinihim shayaatiintooda markay la cidloodaan oo la keliyoobaanna qaaluu waxay dhahayaan innaa anagu macakum adinkan la jirankiinana haddii la yidhaahdo warnimayahu maxaa dadka mu'miniinta ahaa dhex fadhideena waxay dhahayaan innaa macakum anaka adinkan la jirankiinana innamaa naxnu anagu un mustahziuuna kuwa ku jeesjeesayaan innamaa in kalame naxnu anagu mustahziuuna kuwa jeesjeesaya ayaan nahay oo kuwa waan maaragtay ka booleysanayna bay dhahayaan allahu alla ayaa yastahziu ku jeesjeesaya bihim iyaga wayamuduhum wuu taagi alle fii tuqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooda ayuu maaragtay u ziyaadin yacmahuuna ayagoo wareersan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtarow iibsaday addalaalata baadi bay iibsadeen oy gateen bilhudaa hanuun bay ku gateen famaa rabixat maynan faa'iidin oo kumaynan macaashin tijaaratuhum ganacsigoodaasi wamaa kaanuu mana ayna ahanin muhtadiina kuwa hanuunsan mayna ahanin marka waxaa laga cabirayaa yani maadaama oo xaqi intay arkeen ay iskaga leexdeen oo baadida ay u baydheen inay xaqi gadeen oo baadi ay kusoo gateen ayaa markaa laga cabiraya waxaa leeyahay waa ganacsi aanan lagu faa'iidin wamaa kaanuu mana ayna ahanin muhtadiina kuwa hanuunay mathaluhum xaalkooda iyo sifadooda kuwa mathalkooda iyo xaalkooda iyo sifadooda iyo tilmaantooda ka mathali alladii kii oo kaleeto xaalkiisa weeye istawqada hursaday ama shitay naaran dab shitay falamaa goortii adaacat ay ifisay markay iftiimisay dabkii markuu iftiimiyey
maa xawlahu wixii hareerihiisa ah markii uu ifiyey oo xalaqii iyo wixii uu kala arkay iyo meesha uu fadhiyey iyo wixii ku hareeraysan uu arkay ayuu dahaba allahu ilaahay la tegey binuurihim iftiinkoodu la tegey wa tarakahum iyagana wuu ka tegey fii dulumaatin mugdiyo dhexdood buu kaga tegey laa yubsiruun xaalayna waxba arkaynin summun waa kuwo maqalla yani kuwo dhagala weeye bukmun oo hadalla oo aan maaragtay hadal aanan ka soo bixi karin oo afla cumyun waa kuwo indhala oo fahum iyagu laa yarjicuuna ma noqon karaan oo xaqa xaggiisa oo ma noqonayaan weye tilmaantaas marka yani qur-aanka waxyaabaha uu wax ku cadeeya waxaa ka mid a inuu tilmaamo uu bixiyo tilmaamtana waxaa laga bixinaya qolyaha munaafiqiinta waxay lamid yihiin buu ilaahi subxaana watacaala leeyahay cid iftiin ku dhex jirtay oo iftiinka uun hal mar dam laga siiyey sida marka xaaladda uu gelahaya ruuxa ee mugdiga ah ee markaa lagaba yaabo inuu dhaami lahaa iftiin la-aan hadduu sii fadhiyey uu dhaami lahaa xaaladda uu ku jiro oo kaleetuu ku jiraa ruuxa munaafiqa ah ee xaqa intuu arkay haddana aanan maaragtay raacin ee aanan ku dhaqmin xaaladdaasuu ilaahi subxaana watacaala ku tilmaamaya aw ka sayibin aw amase mathaluhum mathalkooda iyo tilmaantooda munaafiqiinta ka sayibin ka mathali dhawii sayibin mid roob u saaxiib ah oo kaleeto ay lamid yihiin roobkaasoo mina samaai xagga samada ka ahaaday roobkaasoo fiihi dhexdiisa u ahaaday dhulumaatun mugdiyaal ay yihiin waracdun iyo unkad wa barqun iyo hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda ayay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdeeda ayay yeelahayaan min asawaaciqi bilqiyaasha darteed jacda dhacaysa darteed ayay dhagaha faraha gashanayaan xadara almowti geeri ay ka cabsanayaan darteed bayna sidaa u samaynayaan wallaahu alle muxiitun midkii koobayo wey bilkaafiriina gaalada koobahaya yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaac wuxuu sigahayaa yakhtafu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda inuu dafo kulamaa markasta oo adaa'a uu ifiyo lahum iyaga markuu u ifiyo mashaw mamshan baad halkaa gelin mamshan yani maaragtay meel la socdo markuu u ifiyaba mashaw way soconayaan fiihi dhexdiisa wa idaa goortii adlama uu mugdiyooba calayhim korkooda markuu ku mugdiyoodmana oo markaa hilaacii uu maaragtay dhacana qaamuu way istaagahayaan walow shaa allahu hadduu alla doonana la dahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo absaarihim aragyaalkoodaba wuu la tegi lahaa ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo weeye labada aayadoodna ayagana tusaalaha ay bixinayaan waxaa weeye gaalada qolyahan munaafiqiinta ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo cabsida ay mar kastaba ku dhex jiraan ee ay ka cabsanayaan inay xaaladooda la kashifo oo ilaahay subxaana watacaala qur-aan uu ku soo dejiyo ayaa waxay lamid yihiin ruux markaa roob habeen gudcur ah uu ku da-ayo roobkuna uu wato unkad iyo jac iyo uu wato hilaac uu wato cabsida markaa ruuxa uu dareemaya ayagana ku dhex sugan yihiin xaaladaas laga sifeynaya oo lagu tilmaamaya qaala tacaala yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigeen caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray adinka iyo waladiina kuwa min qablikum yani horantiin ahaaba lacalakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad jirtaan alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka idin yeelay alarda dhulka idinka yeelay firaashan gogol idinka dhigay wasamaa samadana binaa'an dhismo idinka yeelay oo waanzala dejiyey min asamaa'i xagga sare kasoo dejiyey maaan biyo oo fa akhraja saaray bihi biyaha sababtiisa min athamaraati mirayaal qaarkood idinka soo saaray risqan irsaaqid darteedna usoo saaray lakum idinka idin sugnaatay idin irsaaqahayo ee falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahi ha u yeelina andaadan kuwa lamid ah ha u yeelina wa antum adinka oo taclamuuna og labada aayadoodna ayadana waxay ka hadlayaan uunkii baa si guud loo baraarujinayaa waxaa leeyahay ilaahay subxaana watacaala keligii caabuda cibaadada asagaa mudan maxaa yeele asagaa idin abuuray adinkii iyo ummadihii idinka horreeyeyba alla waa midka dhulka idin firaashay ee gogol idinka dhigay samadana korkiina ku dhisay cirka roob idinka keenay roobkaa mirayaal fara badan idinku soo saaray irsaaqid la idinku irsaaqahaya dartiin adinka dartiin baa roobka loosoo maaratay ilaahay subxaana watacaala usoo dirayoo waa laidinku irsaaqahayaa wixii kusoo baxay iyo midihii kusoo baxay baa laidinku irsaaqahayaa saa darteed falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi allah u yeelina
andaadan kuwa lamid ah u yeelina. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey ayu dembi acdam, dembi kee ugu weyn nabiga sharafta badano, markaasaa wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka, inaad ilaahay subxaana watacaala mid lamid ah aad samaysato oo aad ku garab wado, wa huwa khalaqaka asagoo ku abuuray. dembi ka weyn oo la geli karo ma jiro. wain kuntum haddaadsa tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad tihiin, shaki haddaad ku dhex sugan tihiin, mimaa kii xaggii aad kaga sugan tihiin shaki, nazalnaa aan soo dejinay calaa cabdina addoonka anaga sharafta badan Muxamed aan ku soo dejinay, fa'tuu la imaada bisuuratin hal suurad ah la imaada oo min mithlihi asagoo kale ah. qur-aanka uu nabi maxamed lagu soo dejiyey ayaa waxyaabaha ay ku mucaaradi jireen baa waxaa ka mid ah, waxay dhihi jireen maxamed asagaa jeebkiisa ka keensaday. shaki baad ka qabtaan soo maha. suuradda waxay ku bilaabatay dalika alkitaabu laa rayba fiih, kitaabkan wax shakiya dhexdiisa ma ahaaninoo ilaahay subxana watacaala xaggiisuu ka ahaaday. haddaadse shaki sheegaysaan ood leedihiin maxamed baa jeebkiisa ka keenay, fa'tuu bisuuratin min mithlihi, suurad asagoo kaleeta a keena, wadcuu una yeedha shuhadaa'akum makhraatiyaashiina, idinka idin makhraatiya u yeedha, min duunillahi alla sukadii in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya. fain lam tafcaluu haddii ma yeelin, walan tafcaluu mabana yeelaysaane, oo idinmaba suurtagelayso. qur-aanka dee waa kalaam ilaahi subxaana watacaala, kalaamka ilaahi subxaana watacaalana miisooyin gooni ah buu leeyahayoo cid yacni kaleeto oo keeni karta ma jirto. waa naba-un cadiim, war weyn weeye, war weyn weeyaan. ilahi wuxuu leeyahy tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla. kelimada ilaahi subxaana watacaala waxay ku idlaatay yani run iyo cadaalad. kitaabka ilaahi subxaana watacaala uu soo dejiyey laga soo bilaabo 1447 sano ka hor baa lasoo dejiyeyoo yani maaragtay maalinka ilaa yowmana haada waa wuxuu u wada yahay dastuur, waa cadaalad ay ku wada dhaqmayaan. in wax laga bedelo looma baahno, baynama dasaatiirta kalete ee la qorahayo sanad kastaba in la bedelo ama jiil kastaba inuu iska bedelo loo baahanhayo. fain lam tafcaluu haddiina yeelaynin oo inan la kaalay karaynin, walam tafcaluu mana yeeli kartaan bee, fattaquu iska jira marka annaara naar iska jira, allatii naartaasoo waquuduha shidaalkeeda iyo waxa lagu huriyo annaasu dad ay yihiin, iyo walxijaaratu dhagxaan ay yihiin. ibnu mascuud waxaa laga warinayaa xijaarada inay yihiin xijaaro la yidhaahdo xijaaratu min kibriit ah, uciddat waa loo diyaariyey buu yidhi alle lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey naartaasi. wabashir aladiina wabashir u bishaaree nabiga sharafta badan oo aladiina kuwa u bishaaree aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey asaalixaati camalka wanaagsan sameeyey, anna lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin inay leeyihiin ugu bishaaree. janno waxaa lagu galaa iimaan iyo camal wanaagsan, oo sidiisaba qofka yani iimaanka waxaa la yidhaahdaa maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal ayaa la yidhaahdaa. ana lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin inay u sugnaadeen, tajri ay dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaal. webiyaal baa hoosteeda dareeraysa oo guryaha iyo geedaheeda hoosteeda webiyaashaa dareerayaan. kulamaa mar kasta oo rusiquu la irsaaqo minhaa jannada xaggeeda xaal uu ka ahaaday min thamaratin miro markii lagu irsaaqo, risqan irsaaqid markii lagu irsaaqo, qaaluu waxay dhahayaan haadaa kani alladii midkii weeye rusiqnaana lagu irsaaqay min qabl horaan. yani waxaa weeye micnaha lababa waa la dhihi karaa baa la yirioo miraha lagu irsaaqay ayaa wuxuu la ekaanayaa mirihii lagu irsaaqay adduunyada markay joogeen, oo markaa timirtii wax u egoo miro ah loo keeni, markay asagii oo kaleeta ay moodaan hadhow markay dhadhamiyaan waa miro jannaad iyo timir janno oo kii kaleeta ka duwan oo ka macaan oo weligood qalbigoodaan kusoo dhicin, oo maaragtay wax ilaahay subxaana watacaala uu jannada ku diyaariyey. waxaa kaloo la yidhi ma ahee jannada dhexdeeda yani maaragtay miraha loo keenahayo, kii hadda loo keenay iyo kii hadaay loo keenay iyo kii shalay loo keenay baa iskaga wada ekaanaya. markay dhadhamiyaan muuqaal ahaan buu iskaga egyahay, dhadhankina mid kastaba waa dhadhan macaan oo kii kaleeta ka duwan oo miro jannaad ah weeyaan. labaduba waa laba tafsiir. midka dambe ayay markaasi maaragtay mufasiriin fara badan rajaxayaanoo waxaana imaan doonta wa utuu bihi mutashaabiha. mirihii waxaa loo keenay xaal uu yahay mutashaabihan, mid isku eg xaal uu yahay ayaa markaa maaragtay yaa mirihii loo keenay.
kulamaa mar kasta oo rusiquu la irsaaqo minhaa jannada xaal uu ka ahaaday min thamaratin miro risqan irsaaqin markii lagu irsaaqo qaalu waxay dhahayaan haadaa kani alladii kii weeye rusiqnaa na lagu irsaaqay min qablu horan wa utuu waa loola yimid bihi risqigii baa loola yimid mutashaabihan isagoo isku eg walahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda aswaajun xaasas markii yacni la irsaaqo oo calooshii la buuxsado haddii waxaa loo baahanayaa meel shahwo lagu gutee wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey aswaaj xaasas buu u diyaariyey xaasaskii markaa jannada kusii diyaarsanaa ee xurulciinka ahaa iyo gabdhihii mu'minaadka ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaariyey ayaa markaasi maaragtay lagu irsaaqahayaa walahum waxay leeyihiin fiiha jannada dhexdeeda aswaajun xaasas bay leeyihiin mutaharatun oo la nadiifiyey oo markaa maaragtay wax yani maaragtay la dhibsado aanan lahayn wahum waxay leeyihiin wahum iyagu dheh fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waarahaya weeye oo weligood bay ku jirahayaan halkaasuu ilaahay subxaanahu watacaala ku abaalmariyey hada wabillahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك